weli waxaynu ku jirnaa wararka xanuunka corona hay'adda duulista iyo hawada ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxa ay ku dhawaaqday joojinta duulimadyadii caalamiga ah ee dalkaasi tagi jiray iyo kuwii ka bixi jiray wixii ka dambeeya ama arrintaasi waxa ay dabcan bilaabanaysaa 18 bishan aynu ku guda jirno talaabadan ayaa dawladda Djibouti waxa ay uga gol leedahay ka hortagida xanuunkan corona oo dalal badan oo dunida ku yaala dabcan saameyn xoogan ku yeeshay isla markaana haatan soo gaaray qaar kamid ah dalalka Afrika haddaba wasiirka gaadiidka ee Jamhuuriyadda Djibouti Muuse Maxamed Axmed ayaa go'aanka ay dawladdu ku joojisay duulimadyadii caalamiga ah waxa uu uga waramay wariye Maxamuud Cusmaan Bulxan qadka telefoonka ayuuna ugu waramay dawladdu socotid xanuunka coronavirus COVID-19 loo yaqaan oo caalamka aad ugu faafay kadib mantiqada aan ku naalo marka hore muu gaadhin bay waxaan lagu dareemay Ethiopia Kenya iyo Rwanda ayaa laga helay anagu intuu xanuunku aad u faafin markii maalintii ugu horreysay la sheegay guddi heer wasaaradeed yaa la asaasay madaxweynuhu hogaamiyo dhowr shir baan galay waan tabaabulsanay inta oo dhan maanta markaan aragnay inuu xanuunku nagu soo dhawaaday waxaan go'aansanay in duulimaadka ama dawladaha ka imanaya Yurub wadamada aad u saameeyay xanuunkan ayaan isnidi duulimaadada hal hakiyo hal joojiyo intaan xaaladdu aan arkayno sida u socoto maanta qaraarkan soo saarnay amar ku siinay hay'adda duulimaadka rayidka yaa soo saartay oo wasaaraddeeda hoos timaada safaaradihiina waan ogeysiinay waxaan u dirnay wasaaradda arrimaha dibadda ayaan qoraal ugu diray anigu wasaaraddiina way ogeysiisay safaaradihii iyo hay'adihii dawliga ee Djibouti ku sugnaa waa la wada ogeysiyey marka wasiir go'aankan aad soo saarteen goorma ayuu si rasmi ah u dhaqan galaya wuxuu dhaqan galaya wala arbacada bisha 18 Maars ayuu dhaqan galaya intaasi labada cisho amba saddex cisho 12 saacadood waxaan u siinay in sharikadihii tigidhadii dad baa goostay dad baa transit ku ah wadamo kale oo nagu soo socda dadka dhexda lagama soo celin karayo marka waxaan nidhi inta hays nidaamiyaan iyo kooda og maalinta arbacada dawlad ka baxaysa ka duuleysa mataarka Djibouti ma jirayso dhinaca kale wasiir Djibouti waxa jooga ciidamo ajnabiya oo aan ognahay in garoonka diyaaradaha ay alaab ka soo degto oo dhinaca cargo-ga go'aankan ma saameynaya dhinaca cargo-ga ma saameynayo laano warqadii amba bayaanka soo saarnay way ku qoran tahay cargo-ga kuma jiro duulimaadka ciidamadana kuma jiraan anagu passengers-ka amba passager-ga ee rukaabka ayaan dadka rayidka ee rukaabka ee ka imanaya wadamada aad xanuunka u taabtay ayaan cabsida anagu dalkeena iyo dadkeena ka qabno ayaan isnidi bal joojiya intaan ordi lahayn markuu xanuunka soo galo intaan ordi lahayn aan fili lahayn intuuna soo galinba aan ka hordagno oo aan isnidaamkaaban anagu dhiganay ilaahay hafuddeeyo markuu fududaadana qaraarka aan qaadan doonana waa laga socodsiinayna insha dhinaca dhulka kale haddaan fiirino Ethiopia oo darisna dhinaca xudud ayaa halkiis lagu arkay taas sida ugu diyaar garowdeen diyaar baan nahay marka horeba xagga tareenka ka soo galaya district soo maraya waa la baaraa gelilay waa lagu baaraa dadka rukaabka soo galaya galaafina iminka la dhigay waxa ka soo galaya kamiyonada maxay ahayd xamuulka sida ee sii baxaya soo baxaya ilaa maalin kun gaari wax oo u eeg soo galaya marka halkaana duuniga wada jaarnahay walaalanaaya ku xidhan halka ma xili karayno laakiinse fujignaan baan xagga kaga shaqeynayna waa la dhigay dhakhtaradii ciidamada rayidka ayaa jooga qalabkii waa la wada siiyey hawsha xagga bay ka soconaysaa wararka waa la joogaa wixii markab soo galay oo qofka soo dhaadhaco waa la baaraya kaasina wuxuu ahaa wasiirka gaadiidka ee Jamhuuriyadda dalka Djibouti Muuse Maxamed Axmed waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay wariye Maxamuud Cusmaan Bulxan wali halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay